qoomkii iyo duriyadii Nabi Nuux halaagii biyaha ee lagu maasheeyay intii ka badbaaday dhulka ayana ku faafeen waxaana ka mid ah qoom la yiraahdo reer Caad waxay ahaayeen dad dhaadheer oo aad u xoogan oo waaweyn oo la moodo inuu jirkeeda ka samaysan yahay bir dadkuna way ka baqi jireen muuqaalkooda aad ka weyn dadkan ayuu Alle u soo diray Nabiyullaahi Huud calayhi salaam si ugu yaro inay rumeeyaan Alle laakiin way ka biyadiideen ilaa uu Alle ka marsiiyay ciqaab cibro qaadasho u noqotay qof kasta oo maqlay مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان reer Caad waxay caan ku ahaayeen dhisida daaro iyo toondooyin dhaadheer si ay dadka lagu muujiyaan awoodda iyo quwadda ay leeyihiin waqtigooda ugu badan waxay ku bixin jireen cunto cunidda ciyaaraha iyo dhisida guryaha buuraha dushooda ay ka dhisi jireen goobo lagu ciyaaro oo meel fog laga arki karo waxay dhisi jireen guryo dhaadheer oo muuq sare leh qofba qofka kale waxa ugu faani jiray dhismaha gurigiisa hantidooda dhammaanteedana waxay ku bixin jireen dhismaha guryaha taariikhyahanada ayaa wariya inay dhulku bana u dhisi jireen si qofka haybadda u helo guryaha ay lahaayeenna waxay ka tira badanaayeen baahidooda oo waxay ahaayeen kuwo faaruq ah oo faani kibir iyo awood muujin loo dhiso xilliyada abaarta waxay ku duuli jireen deegaanada ugu dhow waxayna si fudud cagta ku mari jireen meesha ay duulaan ku qaadaanna waxaa lagu sifeyn jiray inay lahaayeen xanaaqa maroodiga oo marka uu caroodo baabiya wax kasta oo awoodiisa ka hooseeya Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u barkeeyay dhulka ay degi jireen reer Caad xoolahooda waxay daaqi jireen waadiga dhulkoodana wuxuu ahaa dhul aad u qurux badan oo cagaar ah waxaa ku yaala beero soo jiidasho badan nimcooyin badan oo dadka u dhow deegaankooda aysan haysaninna waa ay haysteen reer Caad waxay ahayn qoom carab ah deegaankooda wuxuu ahaa dhul u dhow meel xeeb ah oo la yiraahdo Shaxti oo ka tirsan deegaanka Axqaaf oo u dhaxaysa gobolka Xadratulmawd ee dalka Yemen iyo Cumaan wuxuu ahaa deegaan barwaaqo ah oo ku dhex yaala meel saxra ah dadka deegaankooda ka duruqsanna aysan haysanin nimcadaasi oo kale waxay noqdeen kadib halaagii qoomkii Nabi Nuux dadkii ugu horreeyay ee shirki la imaada nimcadii Alle ku galadayna waa ay ku kufriyeen waxayna samaysteen sanamyo waxaa caado u ahayd isla weynida iyo baabi'inta dadka kula deegaanka ah ee ka tabarta yar dhagaxyada kuwa uga adag ayay ka qori jireen asnaam isla dhagaxyadaasi ayay duco weydiisan jireen waxayna ahaayeen kuwa ku fogaaday shirkiga umana muuqan nimcooyinka dhulkooda buux dhaafiyey ee Alle subxaanahu wa tacaala siiyey kumana mahadnaqin oo Alle khayrkiisa ayay shirki uga dhigeen Alle ayaa u soo diray nin walaalkooda ah oo iyaga ka mid ah oo ahaa Nabi Huud calayhi salaam wuxuu soo xambaaray fariintii Alle ee ahayd in qoomkiisa uga digo shirkiga nimcooyinka Alle uu xusuusiyo sidoo kale u tilmaamo inay ka tagaan sanamyada ay gacmahooda ku samaysteen kana fogaadaan kibirka iyo dulmiga ay aadanaha kale kula dhaqmayaan iyaga oo ku faanaya awoodda jir ahaaneed oo ay aamineen cid ka awood badan inaysan jirinba sidoo kale ay ka fogaadaan kibirka nimcooyinka dhulka yaala Nabi Huud calayhi salaam nasab ahaan wuxuu ka soo jeedaa duriyadii Nabi Nuux calayhi salaam abtirsigiisuna wuxuu noqonayaa Huud ibnu Shalax ibnu Arfaqshanda ibnu Saam ibnu Nuux calayhi salaam culimada qaar sida ibnu Kathiir ibnu Jariir ayaa iyaguna ka dhigaya abtirsiga Nabi Huud inuu ahaa Huud ibnu Cabdillaahi ibnu Rabaax ibnu Caad ibnu Cuthaa ibnu Iram ibnu Saam ibnu Nuux calayhi salaam waxa uu ka dhashay reer Caad oo ahaa dad carab ah Nabi Huudna waxa uu ka mid yahay afarta nabi asal ahaan carab ka soo jeeda kuwaasi oo kala ah Nabi Huud Nabi Shucayb Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxay lahaayeen sanamyadii la oran jiray Saad Samuud iyo Herer waxayna ugu jawaabeen Nabi Huud inay dili doonaan haddii uu markale ilaahiyadooda ku tilmaamo sanamyo aan waxba gelin markii Alle subxaanahu wa tacaala faray Huud inuu qoomkiisa fariintan gaarsiiyo sidii rasuulkii ka horeeyay ee Nuux waxaa markiiba ka soo horjeestay odayadii reeraha iyo dadkii kale iyo kuwii ku boorin jiray caabudida asnaamta Nabi Huud calayhi salaam wuxuu xusuusiyay nimcooyinka Alle ku manaystay ee u saalay inay dhistaan qasriyo iyo guryo aysan baahi u qabin iyagoo aad moodid inay adduunyadan ku waarayaan wuxuu soo xasuusiyay qisadii Nabi Nuux iyo sidii loo halaagay
asnaamta ay gacmahooda ku samaysteenna aysan dhabi dheef aysan midna u haynin, shirkiga iyo gaalnimadana ay iskaga tagaan una laabtaan ilaahii abuuray kana salamariyey dadka kale. huudow waxaa tahay beenaale, waadna jiran tahay, waxaa ku asiibtay carada ilaahyadeena oo ay ula jeedaan sanamyada. nebi huud waxa uu ku yidhi, mana jirni, caranay ma asiibin, ee waa idin nasteexanayaa, ee urumeeya oo qaata diintan idinla yimid oo ka timid rabbigii abuuray samada iyo cirka iyo inta ku dhex nool, idinkana idin siin nimcadan. markasta oo dacwada ugu tagana hal jawaab ayay siin jireen, taasi oo ahayd kuma rumaynayno kamana tegayna sanamyadeena. nebi huud tallaabo kasta uu qaado iyo si kasta wax ugu sheego reerkiisa waa ay ka diideen. isla weynadooda ayaa markasta tusaalaynaysay inaysan fariintan u wada qaadanaynin. dad yar ayaana rumeeyey dhambaalkii nebi huud calayhi salaam. mar walba oo carada alla ka dhalan karta shirkiga ugu digana waxay si kibri isla weyn ugu jirta ku dhihi jireen, noo keena cadaabka aad mar walba noogu goondinayso, cid naga xoog badan oo na burburin karta ma jirto. isagana waxaa ugu jawaabay, alle waa awood badane ee caradiisa hadalbanina, balse waxay ku adkaysteen haddii uu ciqaab haayo inuu la imaado. nebi huud markii uu ka quustay qoomkiisii waxauu alle weydiistay inuu gargaaro asaga iyo inta rumaysay. allana waxa uu ku yidhi, dhowaan ayay ka shallayn doonaan. muddo kadib waxaa ku dhacday carradii alleh, waxaa dhulkooda haleeshay abaar kulul qoroob la-aan ah oo socotay muddo 3 sano ah. waxaa guri webiyadii, cuntadiina waa ay ku yaraatay, gaajada iyo baahidina waa ay ku badatay. abaartii markii u adkaysan kari waayeen waxay baryeen sanamyadoodii iyagoo weydiisanaya roob iyo biyo, balse waxba uma kordhin karin dhagaxyo ayagoo gacmahooda ku samaysteen. abaartii kadib waxaa dushooda hareeray daruuro madow oo u eg kuwa roobka sidaa, waxayna u maleeyeen in sanamyadoodii ay ducadii ka aqbaleen oo roob u dii doono, balse daruurahani waxay ahaayeen kuwo masiibo iyo halaag u sidaa. waxaa yimid roobata dabaylo iyo dhagaxaan, qof walba gurigiisa ayuu ku cararay. alle subxaanahu watacaala ayaa ciqaab uga dhigay inuu usoo diro dabaylo awood wataa si loo tuso in awooddooda aysan ahayn mid meel fog jirta, maanta oo kalena aysan badbaadin karin. waxaa helay dabaylo iyo duufaano aan cidna reebaynin, taasi oo madaxa qofka jirkiisa inta kala jirta guryahana ku duminaysay. sidaasi ayaa lagu halaagay qoomkii kibray ee reer caad. ilaahayna wuxuu ka badbaadiyey nebi huud iyo intii rumaysay. gaaladiina carradii alleh ee ay dalbadeen ayaa la tusay laguna halaagay. sanadkii 1992 dayax gacmeedyada naasa ayaa sawiray haraadiga magaalo burburtay iyo dhismayaal dhagax ah oo ku yaala meel saxra ah iyo buuro ah, yemen iyo cumaan u dhexaysa. fasraad iyo micnayaal badan ayaa laga bixiyey, kuwaasi oo u badan inay ahayd halkii ay deegaanka u ahayd laguna halaagay qoomkii reer caad. waxaa laga helay raadad taariikheed iyo haraadiga dhismayaal adag ah oo dhagax ah. dhulkan wuxuu ahaa meel saxra ah oo wax deegaan ah uusan ka dhoweyn. nebi huud markii uu geeriyooday waxaa aasay dadkii rumeeyey ee ka badbaadiyay halaaga. waxaa jira meelo badan oo lagu sheego inay yihiin halka uu ku aasan yahay nebi huud, sida qabri weyn oo aad loogu xardhay dhagaxad oo ku yaala magaalada xadratulmowd ee dalka yemen oo u dhow halkii qoomkiisa deegaanka u ahayd. sidoo kale goobo kale oo ku yaala sacuudi iyo urdun ayaa iyaguna lagu sheegaa inuu ku yaalo qabriga nebi huud. naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.